waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo inaga saaray gofanihii inagu naaxay amba cadowgii gudaha inala joogay in horumarkeena jecelayn qarannimadeena jecelayn dowladnimadeena jecelayn dadnimadeena jecelayn sharafta iyo karaamada Soomaaliyeedna ay dhibaysay iyo dabadda inooga saaray Kenya waan ku hambalyeynayaa inaad cadowgeeni koowaad dabadda inooga saartay waayo cadowga waxa laga adkaada markuu dabadda ka joogo laakiin hadduu gudaha kula joogo kolba meel buu ka soo galaya madaxweyne aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa taariikhda ku qori doonta haddaad kursigan sii joogto oo calafku ku qoro iyo haddaad ka tagtaba madaxweyne qalbigayga iyo maskaxdayada iyo laabtayada iyo meel ummadda Soomaaliyeed laabtooda iyo qalbigooda ku qoran baa tahay weligaana naga bixi maysid sidaas waxaan kugu jecelahay anagu qabiil maahine qarannimada Soomaaliyeed baan kugu jecelahay nin wadaniya oo Soomaaliyeed oo tuugahayn oo musuqmaasuq lahayn oo qabyaalad lahayn oo daacad u ah wadaninimada oo dan yarta iyo dadka u naxariis badan baata aad iyo aad baan ku salaamaya waxaan kaloo jecelahay halkan inaan kala hadlo ninka la yiraahdo Khayre Prime Minister keenii hore Khayrow slogan iskaada hadalladaadii waxa kamid ahaa sharaf kama doorayno qabqable iyo dal shisheeye toona maantana waxaad ka soo dhex muuqataa kooxdii masiibo qaran ee qabqablayaasha ahayd iyo Kenya oo ahaa dalkii Soomaaliya necba labadiiba waad ka soo dhex muuqataa miyaad matalaysi qarannimada wadaninimada ma waxaad matalaysay ahayd mise ka run bay ahayd waxaan ahayn qofku wuxuu matali karaa muddo kooban laakiin qofku wuxuu yahay uu ku noqdaa aakhirka carabta tira kullu shay yarga li aslihi nimankii masiibo qaran masiibadii dalkeena ku habsatay warloodadii iyo qoladii isbaarooyinka dhiganaysa wadii ka soo dhex muuqday marka ma waxad ummadda Soomaaliyeed ma been baad u sheegaysay oo waad matalaysay mise nin wadaniya baad ahayd ummadda Soomaaliyeed u sheeg waayo anagu waxaan leenahay kullu shay yarga li aslihi qof walba wuxuu yahay buu noqdaa wax kasto uu sheegtaba taasi waa taas qoladan masiibo qaran ay meesha fadhido kuwii qarankeena dumiyay kuwii dalkeena dumiyay weeyaan waxa ku jira kuwii badeena bixiyay aad ogtahay ee maxkamadaha dunida la taaganay ragii bixiyay baa ku jira oo fadhiya waxa ku jira ragii kufaartii xamar lagu laayay qofku hadduu diinta islaamka ka baxo waa kaafir billaah ilaahay ka fogaado kufaartii xamar lagu laayay ninkii u sujuudayay kaafiriintii إلا هلاك قفكم مركب كافر هاي هدي اللي دلوا ولا هلاكه وهلاك لكن ده مش ما مركب كفارتي نكي السجود يبقى كم ده دركيس إلها قرح حمر إمدبو لكن كيني على شيء حنوط إياه كجرا كافرين نكي السجود كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى كويل سدا اللي نكي السجود يبقى كجرا sideed aamintood soo dhex fadhiisatay miyayna devaluation kugu hayn meel ka dhac miyayna kugu hayn inaad kuwa soo dhex fadhiisato ummadda Soomaaliyeed la hadal wax u sheeg bal wax u sheeg waxa aad damacsan tahay ummadda Soomaaliyeed u sheeg waxaan kaloo rabaa inaan u sheego niman meeshan ka hadlay oo Ali Mahdi kamid yahay Ali Mahdi oo gacantiisa Soomaaliya ku burburtay oo shidan gacantiisa ay ku burburtay hadduu aqli leeyahay Soomaaliya badbaadin lahaa laakiin madaxweynena hayb Soomaaliya ku burburtay gacantiisa ku burburtay ayaa raba inuu ka hadlo kuraasta waqooyi anagu waxaan soo dooranay oo namatalaaya in la yiraahdo Mahdi Guuleed wuxuu nagu matalayaa aqoon wuxuu nagu matalayaa aqli wuxuu nagu matalayaa garaad wuxuu nagu matalayaa garasho wuxuu nagu matalayaa daacadnimo wuxuu nagu matalayaa Soomaalinimo ayuu nagu matalayaa wuxuuna ka soo jeedaa saldanada waqooyiga ugu dheer ugu horeysay oo ciida gala kaas anaga nama matalaya Cabdi Xaashi oo 9 jir ka soo dhex muuqday qoladii masiibo qaran la tusaaxib al-ashrar nimankii masiibada iyo balaayada wada qaranka inay dumiyaan raggii waday buu dhex fadhiyay isagoo 9 jir ayuu ku astaysan yahay amba ku magacaaban yahay inuu ragga dhex fadhiyo marka anaga kaasi nama matalayo kaasana matalay marka inaan naga raali had naga xishooda dad aqoon leh oo cilmi leh oo garaad leh oo garasho leh oo wadaniina ayaa anaga nagu matalaya Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waan idin salaamaya Soomaaliya ha noolaato calankaas Soomaaliyeed ha noolaado calankaas ayna madaanaya Soomaaliya ha noolaato madaxweynaheeduna ha noolaado cadawgeeduna ha jabo